Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal galab wanaagsan oo wacan. Daawade waa barnaamijkeennii taxanaha aynu kaga hadli jirnay faa'iidooyinka dhirtu u leedahay aadamaha iyo gebi ahaan noolaha intiisa kaleba. Barnaamijka qaybtiisii labaad oo maanta aynu kusoo qaadan doono waddanka Somaliland. Kusoo dhawaada barnaamijka. Somaliland waa dal oo mana ah, cimiladiisuna guud ahaan waa mid kulul. Dalka waxaa ka dhaca abaaro soo noqnoqda iyo roob yari. Heerkulka maalinlaha ah ee dalku celcelis ahaan wuxuu u dhexeeyaa 25 ilaa 35, waxaana ka dhacda dabaylo xooggan, cirkuna intiisa badan daruur ma leh. Qaybo badan oo ka mid ah dhulka Somaliland waxaa ka jira dhibaato deegaan oo ay sababtay xaalufinta dhirta iyo dabar go'a xayawaanku. Caraguurka, boholaha iyo jeexjeexyada ay abuureen qulqulka biyuhu, sidoo kale wadooyinka aan qorshaysnayn iyo tuulooyinka soo badanaya. Daawade, jarista dhirta dhuxusha laga shidayo maaha mid xayawaanka oo keliya khatar ku haysa, ee waa mid aynu la wadaagno xoolaha iyo xayawaanka intiisa kaleba. Daawade, barnaamijka xiga inta aynu ka kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo nabadgelyo.